wiilkan yar idin muuqda da'diisu waa 9 sano. wiilkan yar ayaa hadaba waxa uu galay mid kamid ah xabsiyada dalka Mareykanka kuwooda ugu halista badan gaangistarada ugu waaweyn lagu hayo. miskiinkaasi yar ayaa xabsigii markii uu galay xaaladda ku xumaatay danta iyo duruufuhu waxay ku kalifeen inuu waajaho boqorka xabsigaas nin aan laga daba hadal aragtidiisoo kaliya laga baqo magaciisa ma taqaanaan waxa loogu magac daray ninkan shaydaan ninkan awoodda badan ee laga dambeeyo ayaa hadaba markuu arkay wiilkan yar ee maxbuuska ah ee da'da yar ee 19 jirka ah inuu sidii caadiga ah dhibaateeyo wiilkan yar xaaladiisu waa xun tahay waxaan dhacaya uu la yaabin yahay laakiin maalintii uu ninkaasi weerarka ku soo qaaday ficilka iyo go'aanka uu wiilkaasi yar maalintaasi ku dhaqaaqay ayaa waxay bedeshay waxyaabo far badan iyo noloshiisa xabsiga mustaqbalka saaxiibada shakadan waxay noqon doontaa mid aad u xiiso gelin doonta waa mid gudaheeda ay ka dhici doonaan dhacdooyin kala duwan xamaasadooda wata murugo action dhiiranaan guul haddaba saaxiibayaal ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta channelka dadweynahana haddii aan subscribe saarin haatan saar si ay ku soo gaaraan muuqaalada dambe oo xiiso leh muuqaalkana like soo dhawaada saaxiibayaal mar kale qasada haddaba saaxiibayaal muuqaalkeena maanta ku soo qaadan doono waxa atoore ka ah wiilkan yar ee idin muuqda magaciisu waa Reggie Cole haddaba wiilkan ayadoo da'diisu yar tahay ayaa qoyskiisu waxay u wareegeen oo u guureen magaalada Los Angeles sanadii 1985 xaafadda wiilkan yar qoyskiisu waqtigaasi soo degeen ayaa waxay ahayd mid kamid ah hoodiska ugu halista badan xaafadaha ugu halista badan Los Angeles waxaana si joogta ah uga dhici jiray xaafadahaasi dambiyada ugu waaweyn waxaana si joogta ah ugu soo badanayay xaafadahaasi kooxaha burcadka waqtigaasi wiilkan yar da'diisu waxay ku sii socotay ku dhaweyd da'da 10 jirka waxauna ahaa Reggie wiilka xaafadooda ugu yar waxa jiray hadaba saaxiibayaal wiilkan ka weynaa oo lagu magacaabo Kenny da'diisuna waqtigaasi ay ahayd 15 sano wiilkan hadaba lagu magacaabo Kenny ee 15 jirka ayaa markii ay soo yimaadeenba waxa ku biiray koox gangsta hadba saaxiibayaal kooxdani uu ku biiray oo kamid ka ahaa wiilkan lagu magacaabo Kenny waxay colaad kala dhaxaysay kooxo kale oo gangsters ah sida caadiga kooxda gangster ah kooxo kale oo ka soo horjeedo lid ku ah is hayaanba mar waliba jirta walibana kooxdani kale colaad aad u xun iyo cuqdadiya takano ayaa dhexdooda ka dhaxaysay oo waxba la kala dildilay kooxdan ay wiil laga dilay kooxdan kale xanaaqay iyaguna waxay go'aan ku gaarayaan inay ka aargoostaan iyaguna qof kale ka dilaan waa tabta haatan Soomaaliya ka jirta qabiilada qabiil reehbal leeyahay qof dilaya qabiilkaasi qofka laga dilayna miskiin kale oo waxba galabsan oo reehbalka ka tirsan bay si xun u dilayaan anyways wiilkani hadaba kooxdaas ay ku jiray waxa dhacday hadaba Kenny kooxdiisan asagoo la jooga maalmaha kamid ah oo hoodka iska fadhiya meelahaasi wadooyinka iska joogaan iyagoo kooxo iska fadhiya baa waxa weerar ku soo qaaday koox kale oo is hayeen gaarigoodii bay soo qaateen hub bay soo qaateen hal mar bay xaafadoodii soo galeen markaasay rasaas har kaga qaadeen papa wixii meesha fadhiyo dhan dhalinyartii markaa wadada fadhiday waxay u kala qaybsameen qaar yaaca oo rasaastii wixii ka badbaada iyo qaar ku dhaawacma oo meesha ku dhaca iyo qaar bartii ku dhintaba Reggie walaalkiisii ka weynaa ee 15 jirka waxa uu kamid ahaa dadkii bartaas maalintii ku dhintay Reggie aad ayuu uga murugooday qalbi jab ayaa ku noqotay sababtoo ah waxa uu ahaa walaalka kaliyaata ee hormuudka ah ee uu ku daydo ee garabkiisa ah ka celiya caruuraha kale markay dhibaateeyay sidaahdaan waxa uu u soo iibin jiray uu keenay jiray waxyaabaha uu baahan yahay markii uu maqlay geesigii ka weynaa in la dilay runtii arintaasi aad bay u gubtay aad buu uga murugooday haddaba saaxiibayaal markii arintaasi foosho xun xanuun ka badan soo wajahday Reggie waxa uu go'aan ku gaaray inuu is-ilowsiyo oo waxbarashadiisa awoodda saaro iskana ilaaliyo afaarahan xanuunka badan ee foosho xun ee walaalkii galaaftay arintaasi waalidiintiisa ku gacan siiyay waxbarashada ayuu ku dadaalay laakiin environmentiga meesha uu degan yahay dadka uu la nool yahay ayaa dabcan haddii wax xataa toosna oo sidhaahdo saameynaya waxa jirta inamadu hadaba wiilkii walaalkii ka weynaa asxaabta la ahaa inta oo isbarteen wiilkan yar rafturkiisa yaqaaneen tartiib waa sii dhaxgalay dhalinyar cusub ciyaalka xaafadda oo kooxaha iyo balaaya ku jira isbarteen tartiib wiilkii yaraana waxa uu qaaday tubtii walaalkiisii ka weynaa meeshii walaalkiisii ka weynaa maray ee gangiskiyo wixii ayuu qaaday walibana markii uu yara weynaaday dugsigiisii sarana uu gaadhay gabi ahaanba waxbarashadii faraha ayuu ka qaaday kooxahaasi gangiska ayuu ku biiray walibana arintaasi waxa sabab u noqotay baa la oran karaa fuquuq iyo kala tag ku yimid labadiisii waalid marka laga reebo walaalkiisii la dilay waxa soo haray 3 waa 2 gabdhood iyo walaalkiisii la dilay wiilkii ka weynaa kale wiilkaasi hadaba markii arintu xumaatay waalidiintiisa kala tageen waxa uu go'aan ku gaadhay inuu gabi ahaanba magaalada isaga tago oo magaalo kale u shaqo tago xagga labadii gabdhood ee wada dhasheen
walaalihii ahaana ay guursadeen mid waliba ay linkeedii la nooleed odaygii aabihii asna sidoo kale guriga waa isaga tegay oo meelo kale ayuu isna isaga noolaa gurigii waxa ku soo haray Reggie iyo hooyadii dabcan islaantii hooyadii way maamuli kari weyday waxbay ka qaban weyday calal xumayna ku noqotay inay aragto mar waliba wiilkeedii yaraa oo marba markaas dambaysa sii fogaanaya waxbana aanay ka qaban karin mid kamid ah gabdhihii la dhashay walaaladii ayaa waxay la hadashay ninkeeda oo haystay meel ganacsiga waxaana ka codsatay in uu wiilkan yar walaalkeed uu caawiyo isla mar ahaantaana uu shaqo siiyo wiilka ayaa shaqo ugu yeedhay waliba shaqo fiican ayuu ugu yeedhay laakiin already Reggie waxa uu haystaa hawlo kale oo waaweyn waa una diiday waqtigaas ayada waxa uu wiilkani faraha kula jiray arrimo dhanka xashiishka waxa uu ka shaqeyn jiray meelo lagu beero geedaha xashiishada yacni wiilkan yar dhaqankiisii waa ku daayay for the first time da'diisu markaa ahayd 16 sano ayaa wiilkan maalin maalmaha kamid ah ay booliisku intay ka shakiyeen gacanta ku dhigeen waxaana bilaabeen inay su'aalo weydiiyaan laakiin Reggie isagoo wax su'aalo ka jawaabin baa waxa uu isku dayay inuu ka baxsado maalin kale fogeen ayaa mar kale gacanta lagu dhigay ayadoo waqtigaas lagu qabtay umuuro sharci darra dabcan waxa meesha ka muuqata inuu qaaday wadadii uu walaalkii ku dhintay waqtigaas ayada inkastoo wiilkan yar ku jiray kooxo waaweyn oo gangsters ah haddana waxba ma dilin lamana dilin dambiyada lagu qabanayay ma aha dambiyo sidaas oo halis badan kaliya waxa shiishadii waxyaabo noocaas waxyaabo noocaas lagu qabanayay ilaa laga soo gaariyay sanadii 1995 waqtigaas ayada Reggie dadiisu waxay ahayd 19 sano waqtigaas ayada wiilkan lagu magacaabay Reggie gacanta ayaa lagu soo dhigay ayadoo isla mar ahaantaana lagu eedeeyay in uu geystay fal dil ah waana goorta ay mashaakil ku bilaami doonaan waxa waqtigaas ayada la geeyay wiilkan 19 jirka ah mid kamid ah xabsiyada ugu halista badan ee dalka Mareykanka waa xabsiga lagu magacaabo Calipatria State Prison ninkii Reggie ahaa ugu dambeyn waa la soo qabtay waxa la leeyahay waa lagu fuweynay kaalay darkii maxaabiista leemiga ahaa ayaa loogu labisay deetana gaadhigi ayaa la saaray waxa loo dhaqaajiyay dhanka iyo xabsigii markii si hore oo gaadhiga soo raacayay jawigiisu chill waa iska deganaa caadi buu iska ahaa laakiin mar allaaliya markii uu xabsigii ku soo dhawaaday jawigiisi ayaa gabi ahaan bay isbedelay damoor uu xabsiga ku soo dhawaado damoor uu isbedelayay waxa uu ka soo baxay gabi ahaan magaalo waxa uu soo baxay meel cidla dul banaan meesha loo wado walibana waxay xaaladiisu ka sii dartay markii uu arkay meesha loo wado xabsiga loo wado meesha uu ku yaalay qaabka uu eegyahay marka uu sheeda ka sii arkay gibigiisii baninkii asaga ahaa waa dhidid kuuskuusan baa ka soo daatay markii uu albaabkii xabsiga waliba saa ugu soo dhawaaday waxa sankiisa qabsaday qarmoon zaa'ida xabsi iyo walibana waxa soo gaaray beerta xayawaanaadka ku taala xabsiga kamkamkooda digada iyo waxyaabahaasi kamkamkooda ayaa sanka ka soo qabsaday marka qarmoonkii waxa uu sidiniyo maxay qarmoonkan sanku isqabay sidii uu ishayay asagoo islahaa in yar markaas socod kadib waxaan qarmoonkan waa tagaya laakiin qarmoonkani waa midaan baabayn waa midaan tirtirmayn waaba cadarka meeshan uu socdo xabsigani ammaan ahaan horta aad ayaa loo adkeeyay laba dayr ayaa ku wareegsan mid koobaad iyo mid labaad haddaba saaxiibayaal dayrka labaad waxa ku dhegsan siligaasi ku dhegsan koronto oo qofku haddii uu taabto khalaas isla markaaba waxa weeyaan horta nolol waa isdaayeen isla bartaas ay ku dhimanaya walibana labada dayr ka dambe ayaa korontada lagu xiriiriyay oo ka koobaad qofku waa taaban karaa laakiin maxbuusku haddii uu isku dayo inuu ka koobaad dhaafo okay weeye laakiin marka uu ka labaad u tago bes mar allaaliya marka uu soo qabsado waa gudaha qofkaas saxbiyaal xabsigan waa xabsi aad u halis badan waxa la isugu keenaa dadka dhibka badan ee ugu halista badan ee dilaaga iyo dadka ugu dhibka badan ayaa la keenaa meeshan laakiin arrinta cajaa'ibka ayaa waxay tahay ilaalada goobta waa ay ku yar yihiin oo sida kale ayaa ammaanka loo sugay oo looga baxsan karin laakiin ilaaladu waa ay yar yihiin tusaale ahaan kontonkii maxbuus waxa ku soo hagaagaya hal ilaalo hal askari ayaa ilaalinaya yani haddii la kala qaybiyo kontonkii maxbuus ba hal askari ayaa loo diray ilaal loo dhanaya Reggie maalintii keenay 8 maalmood oo kadib gudaha xabsigaasi waxa ka dhacday arrin aad u la yaab badan oo gilgishay gabi ahaanba xabsigaasi qaar kamid ah maxaabiista oo mindi ay xabsiga gudihiisa ku farsameeyeen wati baa waxay weerar ku qaadeen ilaaladii markaasay dhaawac culus u geysteen 8 kamid ah ilaaladii goobta joogtay walkan ayaa dalka Mareykanka ka qabsaday Reggie markuu arkay xaaladdu inay xun tahay nimankan halis badan yihiin ay xataa askartii ay gacanta ula tagayaan bismillah war meel xun baad soo gashay gacan baad ku jirtaa abti wuu baqay wiilkii yara waa martiba ku yahay durba waxa
waxay indhihiisa u jeedaan waxa ay sameynayaan raggani. Reggie iyo maxaabiistii cusbeed ee maalintaasi gaadhiga lagu siday markii albaabka hore ee xabsiga ay sidaas uga soo galeen banaanka waxa ku sugnaa waqtigaas ayada maxaabiistii hore. Markii la bilaabay Reggie iyo kuwa kale maxaabiistii in laga soo dejiyo gaadhiga oo qof looga soo dejiyo, waxay bilaabeen maxaabiistii hore meesha fadhiday inay si u soo yar fiiriyaan ayoo isla mar ahaantaana wajigooda ka dareemaysid inay lahaayeen ababaay maanta ogaar cusub ayna soo gaadhay. Soo dhawaada qalanjooyinka soo dhawaada inay leeyihiin oo kala ka dareemaysaa wajigooda. Raggii waa laga soo dejiyay, deetana waxaa la bilaabay in la yeedhiyo oo la tiriyo si loo hubiyo inaanu hal qofna ka dhuuman. Waa la soo wada dejiyay, deetana waxaa la mariyay meel baaritaan si jidhkooda looga baaro inay wax sitaan, jeebkii meelaha ay wax ku soo qarsadeen. baaritaan kadib waxaa la soo geliyay gudaha xabsiga qolalkii loo xidhay. gudaha xabsiga markii la soo geliyay, dabcan xabsiga ammaankiisu aad u adag yahay. afarta dhanba waxa weeyaan gidaar adag baa ku xidhan oo xataa shibag maaha, gidaar bir xadiida ka samaysan, korka sare sidoo kale dhan loo dhaaf ma leh. qolalka sidoo kale maxaabiista lagu xareynayo gudahooda haddii aad u fiirsatid waxaad dareemaysaa inaad qabri ku jirtid. qabri dhulku waa biro kor iyo hoos lama jebin karayo. waxa weeyaan meel walba biro xadiida ayaa ku geedaaman. afarta dhan iyo korkaba meel allaaleya meel qof ka baxo ma jiro. xataa kaaga sii darane albaabada maxaabiista lagu xareynayo kaliya waxay leeyihiin korka sare in laga xidho, hoosta lagama xidhi karaba. qofku wuu galayaa, dusha laga xidhayaa, loomaba samayn xagga hoose. sidoo kale sariiraha ay maxaabiistu ku seexanayaan waa kuwa isdul saaran. waxaa halkan ugu yaala suuligii iyo shaawarkii bes. Reggie xabsigii markii uu soo galay waxa uu arkay uu dareemay inaanay meeshani meel caadi ahayn, inay tahay meel aad u halis badan. horta waxa lagu xareeyay asaga iyo nin kale ayaa qol lagu wada xareeyay, mid walbana sariirtiisii ayuu soo kala bixiyay. Reggie go'aanka uu qaatay ayaa waxay ahayd inaanu isdhexgal samayn, wax walba ka dhaco iska aamuso. waxa ugu horeeya uu ka dhacay waxa ahaa ninkii ay gaariga soo wada saarnaayeen baa isha eye contact ugu horey markay saa isu fiiriyeen baa wuxuu bismillah wariyaa qofkan ma garanaysid wax alla wuxuu yahay. halkaas ka soo raacday gaari baa la soo saaray, halistiisa wuxuu kama garanaysid adeer, hala sheekaysan, hala xagalin ka sii jeeso, gabigiisa uu ka sii jeestay. arrinta hadaba maalintii bilowgiiba ninka qabsatay ayaa waxay ahayd asagoo habeenada kamid ah ninkii oo sirtiisa ka jiifa baa waxa soo galay koox maxaabiistii kamid ahayd oo meesha ku jiray ba ayagoo yaacayo oo hergeef tahay soo galeen qolka ugu soo galeen. markay saa u soo galeen ninkii kale saaxiibka meesha fadhiyay baa wuxuu bilaabay inuu raggii dhool cadeyn iyo farxad ku soo dhaweeyo sidee asagoo sida iska dhaadhici ababaay oryaadan la jimada soo dhawaad. laakiin raggani waxa maana qorin. Reggie isagoo afku haysta ma hadlayo, halkaas ku daawanaya waxa ninkii miskiinka ahaa ee doonaya inuu dhool cadeyn iyo farxad ku soo dhawaayo gabigiisaba intay qabteen bay jiddilan garaaceen. walibana garaacaydo gelinay kumaana deeyna intay soo qabteen bay kuufsadeen. ninkii dhanna way kuufsadeen. Reggie waa u maqlayaa waxan meesha ka dhacay, laakiin asagu waxa isku dayayaa inuu gabi ahaanba iska indha tiro oo iska dhigo qof hurda si ay uga qaleeyaan. waana u suurto gasho horta asaga wax faralamaan soo gelin. ninkii markay si xun u galeen ay kuufsadeen ayrbeysaga baxeen. ninkii Reggie ahaa horta waxa uu cashirkii ugu muhiimsanaa ka bartay ninkii saaxiibkii ahaa ee meesha kula xidhnaa, sababtoo ah ninkaasi asaga ah hal mar oo kaliya sidaas laguma sameyn. ninkaasi markii la doono habeenkii waa loo soo gali jiray, wax walba lagu sameyn jiray, waa la kubsan jiray. sababtuna waxay ahayd ninkaasi wax falcelina maanu sameyn jirin, wax dhaqdhaqaaqa maanu sameyn jirin. mar alaaliya marka loo soo galo oo arko raggii inay soo galeen waa isu sii diyaarin oo sii dhiibay sii jeeso wara diyaar buu ahaa. asna mar waliba waa iska indha tiray, qof hurdu iska dhigay oo ka dhacay wax meesha ka dhacay. marka waxa uu cadaatay markii uu maxaabiistiina saa u fiiriyay inay gabigooda badankooda ay sitaan mindiyahaasina maaha mindiya meelaha ka keenteen, waa mid waliba xabsiga gudihiisa ku habaystay. sidaas awgeed waxa uu go'aan ku gaadhay si uu raggan hoosh isaga yiraahdo in uu samaysto at least wax mindi waag. raadin iyo baaritaan buu sameeyay. wax ugu macquulsan ee ugu dhow ee uu mindi ka samaysan karo ayaa waxay noqotay burshkii uu ilkaha ku cadeynayay. kaas ayaa waxa uu sameeyay dhagax buu soo qaatay, dhagax yar oo fiiqan, dhagaxiiba ku qoray ilaa uu burshkiisii ilkaha u ekaysiiyay mindi. wax afaysan oo fiiqan oo qofka hadii laga taaga galaya. okay at least hadda wuxuu isleeyahay hadii hoosta laga soo galo wax roosa isaga tirada haysataa halkaas uu gashtaa heer. alright waxa uu fiirsaday xabsiga iyo wadciga meesha waxa ka jira. intaas asagu ma hadlay, waa aaminsan yahay. Reggie xaaladaha ayuu wali u fiirsanaya. waxa uu soo baxday hadaba dadkani maxaabiista badankoodu waxay ku jiraan kooxo ayay wada socdaan oo lacala birika maalin hadii uu qof kugu soo xadgudbo waa inaad haysataa cid garabkaaga oo ku soo garboodo ka difaacdo yurka dhahda wixii weerar ku soo qaado. laakiin asagu waa keligii, hadii weerar lagu soo qaado cid garabkiisa ah ma jirto.
sidaas ogeed waxa uu sidoo noo horta ka dhex raadi qofaas waji karataan ugu yaraan qofkaasi deetina la sheekayso deetina sidaasi kooxdiisa ugu bir oo diclaadul haduu isiraado ku bir koox la aqbali maayo ninka wuxuu yahay lama garanayo miskiin miya jilicsan miya cid soo dhaweysanaysa ma jirto nin adag ba loo baahan yahay at the same time waxa uu isku dayay in dadkan indhahooda uu qabto la arko sababtoo ah haddii tooshku qabto lagu soo wada jeesto ninkanna waa la arkayaa inuu meesha ku cusub yahay mushkilad ayaa qabsan karta balaayo kasta soo weerari karta sidaas ogeed waa uu duuduumanayay dadka ma uu dhaxgalin meelaha yar cirifku ayar isku fadhiisanayay maxaabiista ay contact inuu la sameeyo si fiiriyo iska daa qof markuu soo fiiriyo ka dhacay meel kale isku fiirinayay asagoo hadaba xaaladaas ku sugan ayaa Reggie maalin maalmaha kamid ah hal mar waxa uu arkay asagoo koox bartamaha ugu jiro asagoo koox maxaabiista bartamaha ugu jira markaas ayaa dareemay inuu gacan ku jiro isla markiiba kooxdii mid kamid ayaa ka soo dhaxbaxay kaasi oo sida ka muuqatay ahaa madaxii kooxdaas Reggie gibigiisaba intuu qabtay oo hunguriga qabtay ayuu gidaarka saa ugu tiiriyay muxuu ka sameeyay waxba sababtu maxay tahay waa booto iyo hanjabaad ku socota dadkan kale maxaabiistan si ninkan ay uga baqaan cashar iyo tusaale waqtigaas maxaabiistii oo dhan meesha waa la wada joogaa ishu way soo wada feerinaysaa Reggie xaaladii baa ku xumaatay nin xoog weyn baa dhuunta gacanta saa uga hayo gidaar ku dhijinaya maxaabiistii oo dhanna way wada fiirsanaysaa maanta haddii ninkaasi ku horbahdilo waxaasi oo maxaabiisa uu ku horgalaaco khalaas hadeed wada u furmatay sidii ninkii saaxiibkii ahaa ee maalintii ugu horeysay markii la arkay inuu yahay nin jilicsan oo wax ficilna sababin inuu istifaacayn habeen walba lagu soo galgalayay baa hadeed gibigooda wax meesha joogo oo dhan oo riski ugu jira inuu mid waliba weerar ku soo qaado marka wuxuu sirin yahoon la jinow naftu marun bay baxday laba mid inaad ninkan si iska tiraahdo oo indhahan oo dhan ay ka jeestaan iyo inay isdhiibto indhahaas waxaasi oo dhan berri aad halis u gashid go'aan degdeg ayuu Reggie markiiba qaatay cadayga yaraa oo dhagaxa ku qoray sidii mindidoo kale uu sameystay baa xaggan ugu jira markiiba waa uu la soo baxay deetana xagga kelida agteeda ayuu ka taagay ninkii weynaa Allah yahay ma doonayo Reggie inuu ninkan nafta dhaafiyo uu dilo sababtoo ah waxa uu og yahay haddii uu ninkan dilo uu dhuuntay meelahaasi kaga dhufto ninka uu nafta dhaafiyo halis buu ku jiraayo waxa weeyaan waxa laga yaabaa in xabsiyo ka waaweyn la geeyo waxa laga yaabaa in la geeyo meel aanu dibadda xataa arkayn in dil xataa lagu xukumaa laga yaabaa laakiin waxa uu doonaya hadana inuu iska waabiyo ninkii xagga kelida agteeda ayuu ka taagay baalkii isla markiiba dadkii meesha joogay hayoy wariya ninku waa mid walaaya dadkii kale iska daayay ninkii hunguriga ka hayay gidaar ku hayay kooxdiisii ayaa dib u wada durkay Allah wariya ninkani mid loo dhawaan karo kii laftirkiisa faraha intuu ka qaaday ayuu dib uga durkay balaayo wariya war waa masiiba kani Reggie markuu arkay ninkii dhanaa ee dhuunta ku deganaa inuu faraha ka qaaday oo baqdo oo dib u laabtay waxa ku dhacay kuwii kalena ay saaxiibkood ku mashquuleen khalaas dhammaan maxaabiista wixii meesha ku jiray oo dhan big respect ayuu ka helay sababtoo ah waxay arkeen inuu yahay nin fal celinaya oo haddii loo dhawaado qofka noloshiisa halis gelinaya haatan Reggie uma baahno cabsi maxaabiistii gengisi wixii meesha joogo dhan horta 10 waa haystaan hal ku soo dhiiranaya ma jiro go'aankaasina waxa la oran karaa waxa uu ahaa go'aan geesinimo ah oo ku saxna intaa kadib hadaba maxay isbedelay haatan ninkan Reggie horta sumcad aad u cajaa'ib badan ayaa gudaha maxaabiistii ugu dhax faaftay mid walba waxa la oranaa ninkaas waa halasa nin balaaya ninkii dhan xoog bana soo galmarksinaya oo ninkaas waa nin la jina ninkii kooxihii maxaabiista meesha ku jiray koox kamid ah oo lagu magacaabo 49 ayaa ninka isaga ah gacanta waada soo tir warheeda libax nagu soo biir kaalay anaga nagu soo biir asna waa inta uu doonayay sababtoo ah noloshiisa halis ayay ku jirtay laakiin maanta waa loo kala tartamaya koox waliba waxay leeyihiin waa ninkan waa la jina anaga nagu soo biiro kooxdan waxay yihiin horta maanu garanayn inay ku adag yihiin inay ku jilicsan yihiin waxba kama laakiin at least waxa uu helay koox maanta ninkan hadii weerar lagu soo qaado dhabarkiisa oo u dagaalanto difaacda xataa kooxdii kale oo ninka ka dhaawacay hadii ay weerar ku soo qaadas yiraahdaan koox buu hadda haysta sidii ayaa dhacday kooxdii buu ka aqbalay waa uuna ku soo biiray waa si wanaagsan inkastay gudaha xabsigan ay ka jiraan kooxo kala duwan oo aan kooxba kooxda kale ku dhicin hadii la isku dhaco laba kooxood isfara saaraan meeshaasi baaba uu ka dhacayo haddana waxaa jiray hal nin oo aaminsanaa inuu meesha asagu boqor ka yahay asaga kaliya tama xataa maxaabiista meesha ku jirta ayaa wada qirsanay arrintaas nin laga dambeeyo laga daba hadalku qoraayo qormo xukunka uu ku dhawaaqo fulmo ninkaas waxa lagu magacaabaa Eddie Clark waxaana lagu naanaysaa El Diablo oo ah luqadda Isbaanishka micnaheeduna ay tahay shaydaanka hayoy ninkan gebigiisaba waxa loogu magacaabaa oo loogu yeedhaa shaydaanka waa nin aad u awood badan aad u xoog weyn cabsi tii la yidhaahdana bartaas ka dhigay marka xabsigani ninkan waxa uu ahaa maxmiyad gaar meel yaro asagoo iska leeyahay oo kale ahaydba sababtoo ah cawaandad iyo dhibaatooyin dadka dhibaatooyinaya oo kaliya ta hawshiisu ma ahayn waxa uu xabsiga gudihiisa ku lahaa uu ka waday business yar oo sharci darra daroogooyin iyo mukhadaraad gudaha xabsiga lagu kala iibinayo
iska daa maxaabiista ninkan waxa ixtiraamaya oo xushmeynaya xataa ilaaladii xabsigaas farahana iskuulamaana geli jiray ninkan inta badan waxa uu codsado waa loo sameyn jiray oo loo fududeyn jiray sababtu maxay tahay maxaa ninkan xoog lagu qaban waayay maxaa loo dhibat sababtoo ah dadka meeshan la isugu keenay eegada dadka meeshan isugu yimid waa dad gebigooduba halis badan oo hal mar haddii ay wada dhaqaaqaan gudaha xabsigaasi mushkilad ayaa ka dhacaysa marka ninkan awoodda badan ay maxaabiistuna ixtiraamayaan dantooda ayaa ugu jirta inay siduu raba u yeelaan ay u fudeydiyaan maadaama uu yahay ninka kaliya maxaabiistu ay ka dambeeyaan waa si wanaagsan bal hadda haynuu soo noqono dhanka iyo saaxiibkeen Reggie jawigu saxdi buu yahay koox buu bartamaha ugu jiraa kooxdiisaasi ayuu iskala socdaa basketball haddii la ciyaarayo iskala ciyaara haddii la jimicsanayo iskala jimicsada iskala baashaala waqti iskala qaata laakiin kibi ahaanba waxa uu ka dheeraanaya inuu ku dhawaado afaaraha El Diablo ninkan waa uu ogahay qisadiisa wahaya dhammaan maxaabiistuna ninkan taariikhdiisa qisadiisa mugtiga badan way wada ogyihiin waxaan waa la isku wada sheegaa marka kooxdiisaasi ayuu bartamaha uga jiray ninka El Diablona hadduu arko waa uu ka dhici jiray afaarihiisa iskumaan kala jirin kaas haddii uu ku dhawaado indhaha ku feefeeriyo he knows what will gonna happen ninkan lagu magacaabo El Diablo inkastay waqtigaasi da'diisu ahayd 34 sano haddana gudaha xabsiga waxa uu ku qaatay 20 sano oo noloshiisa الله ياي ونكان أستجوا ير أيوب الدنبية باللعبي وحنا وقت جاسي أيضا مركي دادي سواها يصدق حياة تومسون لو حري حبس يدا دقن علتي عرورها لجيو لكن حبس مركي لجيو وحيرو مركي وجوجي جدا حبس جاسي كويرا كلا كوريا عايز كو قبصدين كي راسو وجراعي ودلي أيو نفط دافي ويلكي وحاو كدلك عي أستجوا نفط كوبت جريمبا يعني شيدان نمدي سويل كان واحد باللعمتي أستجوا صدق حياة توينجرا كتب مركي دادي سيدي تومسون نقطي ويلكي الديابلو laga soo daayay xabsigii dhaqan celinta isla markiiba markuu dibadda soo baxay waxa ku beeray kooxo gangsa ayadoon muddo badan ba uu dibadda joogin waxa uu dhacay xaafadii markii uu dhacay waxa uu sameeyay islaantii gurigaasi deganeed ayuu weerar ku qaaday wiilay dhashay oo guriga waqtigaasi ku sugnaa ayaa isku dayay inuu ka difaaco hooyadii ninkani gacanta u qaadaya laakiin muxuu sameeyay El Diablo wiilkii intuu qabtay oo si xun u garaacido kelima ah ayaa hooyadii oo arkaysa uu ku hordilay oo nafta dhaafiyay أعوذ بالله وركن ومصيبه ويل كده نيرتها هويدي أو إنده هذو شنية طبعا أو فيرسنا السا أيو ويل كذي كهرد لي مركز أيا لو دعية حبس جنوين وحنا لو حكومي حبس دائم كان وهالس أمتها لقى قبته El Diablo مركي لا سوق قبتي أو حبس جلاجية أو الحري مركيبة واحد كده بهذي جدها حبس جي نين كان اسمه عديس إنه يهدين آدو هالس بدن آدو دي بدن طب عديس نين كان وحيا هيكو آدو عجيب بدن أرتا وحوها نين تلابوين كوقايد دونو أن fahmi karin asagoo maanta ku dhool cadeynaya kula sheekaysanaya kula faraxsan oo isleedahay ninkan khalaas asxaabaad noqoteen buu bari gacan ku qaadi karaya adigoo saaxiib la ah buu hal mar isaga dhaxarkaya gabigaaga waxyaabaha uu ninkan doonana waa loo sameeyaa at least xataa hadii loo sameyn waayo waa loo fudaydiyaa hadaan kuura ka waran ninkani waxa uu jeclaaday mid kamid ah ilaaladii xabsiga askarti mid kamid ah ayuu iska jeclaaday oo gaangista risku wax ma jeclaadaan qoftii ayada ahayd jacayl intuu hortagay uma aanu sheekaysano no waxa uu qoray warqad dheer oo ka kooban ilaa 8 bog warqad jacayl oo ka kooban 8 bog ayuu gabadhaasi u qoray oo ugu sheeganayo ugu soo bandhiganayo jacayl gabadha ayada ahayd warqadaasi boggii koobaad markay akhriday way aqbashay beeshii koobaad maxaa ku qoran gabaray qalbigayga waxaad hantiday 5% kamid ah qalbigayga aadaan ku siiyay waad hantiday oo waan ku jeclaaday ababa askariyati oo ninkii gaangistarka ahaa baa qalbigayga 5% عجائب maxay kula tahay ma aqbalaysa way aqbashay ma aqaan sa ugu qanacday sababta ugu qanacday nin dilaa ah halis badan gacantiisa dad ku maqan yihiin laga wada baqo sababtu ma daroogadan iyo waxaan uu ka ganacsado oo lacagta ka sameeya waan fahmi waayay gabadhii ayada ahayd way aqbashay hadan kula ka waran waanay iskuursadeen oo marwadiisa ayaa noqotay ugu dambeyn qoftii ninkaasi qorshihiisa oo shaqeeyay 7 or bal tijaabiye idin ku raata tijaabiye eeg waa macquul inay idin shaqeyso buug soo qaado 7 buug ka buuxi jacayl deedna gabadha u dir uge soo akhriso kule buugaas yaro hanjabaadana ku yar raxta taadiyo حتى هذا سيداasi boqod qori kari weedaan isku day erigaasi inaad u isticmaashaan xalimo 5% qalbigayga waad hantiday eega damoon oo dhan 100% qalbigayga ku siiyay waan ku jeclaa uu xadiday 75% oo qalbigayga kamid ah ku siiyay waa straight waan iska siiyay iyo qalbigaada iga xad iyo hawlahaas oo dhan ma gelin intii qalbigiisa u qalanteen buu sheegay intaas aan wax jacayl qalbigayga kaaga helay 75% waana ka aqbashay waa si wanaagsan hadaba haynu soo noqono dhanka iyo saaxiibkeen Reggie jawigiisu waa saxday gudaha xabsigaasi nolol caadiga ah ayuu muddo 4 sano isaga noolaa bilaa mashaakil dad maanu doonaynin cidna maana
soo doonaneen kooxdiisaasi ayuu isaga jiray oo mashaakil dhan oo ka cararayay nin mashaakil badan maanu ahayn mashaakishana waxa weeyaan waa iska ilaalinaya oo qofkii ku soo xadgudba Yurub kala iska celinayay laakiin muddo kadib ninkii El Diablo ahaa waxa uu noqday sakhraan nin waxa uu noqday wax waliba dhibaan markuu iska badiyay darogooyinkii iyo khamriga iyo balaaye iyo qashin markuu nafta isaga qaaday macmacaankii balaayadii ninkii waxa uu noqday nin bilaa dulqaada oo haddaad in yaruun soo fiirisid gebigaaga waxa laga yaabaa inuu mindi ku geliyo kugu dhufto ku kufsado hadduu soo doono ka yeelo nin waxa uu noqday gebigiisiiba aan loo dhawaan karin El Diablo marka ka dambeysay xaaladiisu waa sii xumaanaysay maxaabiista oo dhanina madaxa ay fooraneysay inay xataa fiiriyaan waa laga wada baqay dhacdo cajaa'ib ayaa hadaba dhacday sanadii 2000 sanadii 2000 waliba bishii Oktoobar maalin maalmaha kamid ah ayay maxaabiistii dibadda iska joogaan oo waqti la iska qaadan oo iska wada joogo baa waxa dhagax lagu dhuftay adoo mid kamid ah maxaabiistii ayaa intuu wax qaaday baa waxa ku dhuftay mid kamid ilaaladii deetana ilaaladii ayaa waxay maxaabiistii ku amreen in gebigooduba ay wada jeejebsadaan walibana dhinac saa u jabsadaan si ay baaritaan ugu sameeyaan si ay u ogaadaan qofkii waxaasi soo tuuray haddaba askartii ayaga oo baaritaankii wada oo qof u baaraya baa waxay dhulka ka heleen mindi yar oo sameys oo gacanta lagu sameeyay oo meesha lagu soo tuuray oo yani wax meesha ka cadeed dadkii maxaabiista markii ay maqleen in baaritaan lagu sameeyo mid kamid ah ayaa intii lagu qaban lahaa iska tuuray sidoo halkaas ku tuuray qofka iska lahaa ma taqaanaan mindidaas waxa iska lahaa El Diablo saaxiibkiisa u dhow ninkani halista badan ee laga baqo saaxiibkiisa u dhow ayaa iska lahaa dhammaan dadka maxaabiistuna arintaasi way ogaayeen inuu asagu iska leeyahay deetna mid kamid ah ilaaladii ayaa mindidii kor u qaaday oo yiri war mindida yaa iska leh imikaba iska sheega qofkii mindida iska leh oo soo baxo farta taag aday ku dantahay sheeg laakiin hal nafar oo sheegtay maanu jirin gebigoodaba way wada aamuseen maxaabiistani ayagoo wada og ayaanay haddana sheegi karin cidda iska leh sababtoo ah mid waliba waxa og yahay mushkilada ka qabsan doonta El Diablo shaydaanka weyn markii cidna sheegan weyday oo ninkii askariga ha tax socday uu war midida sheegta yaa iska leh baa madaxa waxa kor u qaaday El Diablo shaydaankii weyna baa madaxa kor u qaaday sidaas ayuu deetana isha u wada mariyay maxaabiistii message jift deetana ishiisu waxay qabatay Reg oo dhankiisa soo jeeday muxuu sameeyay El Diablo farta ayuu ku fiiqay oo ninkaas markaas halka jiif ka ayaa iska leh midida askariga uu ku leeyahay ninka meesha jiif ayaa iska leh Reg waa yaaban yahay allah hayay xaaladdu way xun tahay weerar baa lagu soo qaaday dhammaan maxaabiistu waxay aaminsan yihiin in aanu no oran karin no maba oran karayaba cidda farta ku soo fiiqtay waxa weeyaan waa shaydaankii weynaa El Diablo waa inuu hadii askartu weydiiyaan ida okay ha ana iska leh askarkii baa tago ku yiri waa marunba mididan madax iska leh saas waxa la doo fiiriyay jawaabtay wada sugayaan dhammaan maxaabiistii message jiiftay sidiis lamida haduu yiraahdo ana iska leh waxay u muuqanaysaa wadama loo og yahay midida cidda iska leh waxay u muuqanaysaa hadii uu dambigaasi saaro oo yiraahdo aniga iska leh inuu yahay nin jilicsan sidiis lamida qof waliba uu target galaysan doono la dhibaateyn doono haduuna waqti xaadirkaas uuna go'aan degdeg oo geesinimo qaadan hadii uu noo yiraahdana ha shaydaankii weynaaba halka ka soo fiirinaya mididii uu saa u fiiriyay mididan wartan yani ma tayda ma habiyo mididan aniga tayda ma olo maymuyid maxaabiistii oo dhan baa wada yaabtay iska daa maxaabiistii xataa ilaaladii ayaa yaabtay oo war ma naftaad ma nacday yes ma iska tiraahid balbal maxaa noo kaasiyay laakiin waxa uu arkayay in caafimaadkiisu ay saas ku jirto oo yiraahdo no bro that ain't mine anigu waxaan la insaari ma saaxib ciddaas maanu oran laakiin dambigii waa iska leexiyay oo waxa uu yiri anigu malihi okay faraha laga qaaday oo iska taay sababtoo xataa haduu oran lahaa yes dhibaatooyin xun waxa laga yaabaa inay dhankata askarta ka soo gaaraan oo yiraahdo ninkan waa nin mindisita oo balaayo la dhibaateeyo kuwan kale ee maxaabiistuna ay ku cawaandoodaan anyway waa isdhaafiyay waxa dib uu noqomeen waa isdhaafiyay maalintaas wixii ka dambeysay Reg waxa uu bilaabay digtoonaan inuu islaaliyo iska warhayo sababtoo ah El Diablo waqti walba weerar buu ku soo qaadi karaa ninkaas waa uu dareensan yahay ninkan xaaladiisu ayuu og yahay dhaqamadiisa ayuu og yahay dabeecadiisa ayuu og yahay xataa habeenkii si wacan hurdada ugu maanu ladi jirin oo mar walba waa soo baraarugaya isagoo isla mar ahaantaan isle armoon ninkii ku soo weeraray Reg inkastoo go'aan adag qaatay at the same time haddana waxa weeyaan cabsi fara badan ayaa qalbigiisa ka buuxday oo waxa uu ka baqayo aad uga baqayay natiijada ka dhalan doonta go'aankii uu qaatay Reg inkastoo waqtigaasi jirkiisu dhisnaa oo muddadaasi 4 sano oo xabsi ku soo jiray oo noqday 24 jirka jirkiisa ayuu soo dhisayay waxa uu noqday jir ahaan nin dhisan laakiin si
si kasta oo jidhkiisu u dhisnaado El Diablo ma aha nin loo gali karayo stiil xaaladiisu waxa weeyaan waxa uu dareensanaa inuu ninkaasi gooray noqotoba weerar ku soo qaadi doono intaasi wixii ka dambeysay marka dibadda loo soo saaro oo xoogay waqti qaadanayaan oo ayara jawi ku qaadanayaan dibadda waxa uu isku day jiray inuu ka dheeraado El Diablo iyo kooxdiisa inta badanna waxa uu isku day jiray inuu aado oo waqti ku qaato dhanka askarta ka dhow oo lacala hadduu ninkaasi weerar ku soo qaado si askartu ay wax uga qabtaan oo uga gaadhaan adigu in muddo saas ayuu isku ilaalinayay laakiin maalin maalmaha ka mid ah isla sanadii 2000 asaga oo waris ku hayn oo isloobay oo meel taagan baa waxa uu arkay El Diablo oo wajigiisa cabsi fara badan ka muuqato oo dhankiisa u soo wajahan markaas Reggie waxa uu yaqiinsaday in la gaadhay maalintii uu El Diablo ka aargoosan lahaa maalintii uu balaayada ku dhigi lahaa soo u socday xataa si tartiib ugu aan soo socon oo ayr oo si gaadgaatimo caadi si straight ugu soo socday tolo muxuu sameyn doonaa kullayba wuu dagaalami doonaa laakiin dagaalkiisu nooc noqon doona ayuu islahaa Reggie sida markuu soo gaadhay El Diablo mindi ayuu soo saartay isla markiiba mindidii uu sitay ayuu ku dhuftay Reggie meel halis oo ka dhiman karo kuma dhufan laakiin adigu mindidii waa jeexday dhaawac ayay gaarsiiso dhiig baa aad uga socday waxa meesha ka dhacaya maxaabiistii way arkayaan cidna kumaana soo dhaqaaqin Reggie kooxdiisii xataa kumaana soo dhaqaaqin sababtoo ninkan nin loo dhawaan karo maaha iska daa maxaabiistii ilaaladii oo arkaysa ayaa ogaanaysa ka indha tiray oo iska dhigay inaanay arkayn askartu markay arkeen ninka أنا أحب من أركين يا محاد ألس دافي رجي اسمانو والوالين ما نو أرن الله من دي بالله يقول رفتي ما نو أرن ما نو دواقن ما نو بودين وحاب لابي إنه مرير سوق هذا وماشي وكجحي وكعنت الساعة وقبته وكهيو سي يعني دي كان فرح بدنا كسوس عدا ويران وكنترولو وعاوز حاجي الديابلون مركب من دي يرد كتاجي ماشي وعير بس قاعد دقاقي أثناء اسمانو والوالين وهوش وقبته واحد إنه سكوت إنه دي جاسي كنترولو ومرير كحجي وساس وحجي وكعنت ساس وهيو واسي ونحسن وحل جاري وقت جي حدبه لسوا حروني qolalkii la galgalayay laakiin marka la sii galayo wax waajib ah maxaabiista intii aan qolalka loo fasixin waa la baaraa line baa la galiyaa kolba qof baa jirkiisa baaritaan lagu sameeyaa si yaani mindi iyo wax haduu sito looga saaro waana halis oo la xisaabtamaya qofka hadii lagu helo hub asagoo sita marka waxay sameeyaan qof waliba mindidiisa yaray wixiisa yar waa u qarsada mid yar waana dhigataa qolka ku dhex qarsataa banaanka marka la joogana waana mid yar dhulka ku aasataa meel yarood garanaysa dhigataa waa si wanaagsan haddaba Reggie waa horeeyay safkii marka la soo galay oo la soo socday Reggie baa horeeyay waxa laakiin wax yar ka dambeeyay oo dhowr qof u dhaxeeyeen El Diablo ayaa ka dambeeyay ninkii mindida ka taagay saasay safka ugu jiraan way sii socdeen baaritaankii baa socda ma waxa dhacday markii ay safka soo galayeen oo baaritaankii bilaamay oo meeshii waqti ku qaadanayeen ka soo dareereen mindi meel taalay buu soo qaatay war bal ma siidan waxa mindida ku mindi baa halkan iska soo gashtay baaritaan baa socda hadhow marka baaritaan lagu sameeyo mindida laga soo saaro mushkilad baa ku jirta safkii markii saa loogu jiray oo baaritaan saa loogu sameeyo Reggie baa xagga dambe saa u fiiriyay wali baaritaankii maanu gaadhin dhowr qof ka horeeyo la baaraya waxa uu arkay El Diablo oo soo fiirinayo la yaani ku dhamaatay il waxa uu ku soo fiirinaya yasma ah asagoo dhool cadeynaya oo kale saan ku yeelay walibana intaas yaan ka badan ma ku dhiman nabad kuma noolaanaysa afti meeshan khalaas ku dhamaatay hadii yaani waa hanjabaad macal yasid indho isugu jira ayuu ku soo fiiriyay Reggie saaxib u fiiriyay oo soo jeestay xagan buu staabtay mindidii baa ku jirta isla markiiba wiilkii yaraa ee Reggie go'aan kale oo degdeg oo cabsi ayuu qaatay safkii uu ku jiray intuu ka baxay baa waxa uu bilaabay hal mar inuu ku ordo ninkii El Diablo ahaa deetana muxuu sameeyay goonta ayuu ka taagay mindidii abbaay wariyaha El Diablo oo wiilkan yasayay baa hal mar waxa uu arkay dhuuntiisa uu dhiigu saaga daadanayo cabsi gacantii ayuu bilaabay inuu dhuunta saas ugu qabto si uu dhiigani ka soo daadanaya ee sida u daadanaya uu gacanta ku controlo laakiin waxa uu arkay xaaladiisa oo sii bedelaysa dhiigii oo zaid u daadanaya jawigiisa oo isbedelaya jirkiisa weynaa oo sii yaraanaya asagoo oo gabigiisiba maskaxdii ay si kala noqonayso dhulkiiba la wareegay qab dhulka ayuu ku dhacay El Diablo barti ayuu ku dhintay xaqiibu ku yara sakaraada uu boodbooday khalaas naftii meesha ka baxday isla markiiba ilaaladii wixii baa soo orday Reggie muxuu sameeyay isla markiiba mindidii markuu ku dhuftay mindidii inta tuuray isma waalwaalin buu cala tool sadulka isugu tuuray caloosha ayuu soo jeebsaday madaxa gacanta saartay fariin cad buu diray uu leeyahay yani wakaan waan isdibay mushkilad kale ma sameeyeen ninkaas aan socday ninkiina wakaa waan ka shaqaystay hawsheeda waan ka qabsaday haddana wakaa ila xisaabtaan waxba idin ma sameeyo wax dhibo ma geysanay xaalashan yaa la dilinayaan waxba lagu dhufan tartiib Reggie waa la soo qabtay katiinada ayaa dhac lagu siiyay waa la kixiyay ninkii kalena waqtigiisii ayaa meesha laga qaaday haatan way yaaban yihiin maxaabiistii war ninkani halista ninkani gacanta u qaaday ninkii dhanaan laga baqay walibana nafta dhaafiyay muxuu ahaa anyways
ninkii asaga ahaa gacanta ayaa lagu dhigay waxa weeyaan haatan xukun adag ayuu waajahaya asagoo markii horeba dil u xukunaa ba haddana uu qof dilay ninkan waxa weeyaan waxa uu waajihi karaa waa dil haatan waxa lagu xukumi karaa Reggie dil maadaama uu qof kale haddana dilay ugu yaraan xataa haddii la xukumo waxa lagu xukumayaa 10 sano oo xabsi waliba kali ah laakiin waxa loo ogol yahay ninka dambiilaha ah in uu doorto oo uu samaysto nin lawyer oo garyaqaan oo arintiisa u doodo oo ka hadla marka Reggie wuxuu islaha kulliba waxba faa'iido ma laha adigu waxba ma aanu fiirsan dadkii lawyeradii loo soo bandhigay mid kamid ah buu si bikhtiyaar nasiib isaga doortay laakiin ninkaas oo lagu magacaabo Christopher waxa ahaa lawyer aan inaba caadi ahayn sidoo moodaya iyo si u dhow xataa maanay noqon sababtoo ah ninkaasi waxyaabo fara badan ayuu fudeediyay Christopher ayaa markiiba waxa uu bilaabay in uu horta ka daba tago oo baaritaan ku sameeyo asal ahaanba ninkan qaabkii loo soo xiray iyo sababtii loo soo xiray waxay ahayd Reggie sababta lagu soo xiray bal iga waran buu ugu sheekayo wuxuu aanu dambiyan gelin bal la soo xiray meeshan wax dambiya aanu gelin bal la soo xiray oo markeedii horeba nin miskiin oo innocent oo wax dhiba geysan ayaan ahaa dulmane ayaan ahaa markeedii horeba sheekadii buu uga sheekeeyay wuxuu nin saas baani ahoon yidhi ninkan isaga dambiilaha sheekadii wuxuu ka daba tagay hadaba lagu soo xiray sheekadu maxay ahayd sababta lagu soo xiray waxay ahayd sida sheekadu ay ahayd waqtiyada kamid ah nin luqadda Ingiriisiga xataa aan garaneyn oo Spanish oo lagu magacaabo Filipi baa waxa weerar ku soo qaaday saddexdaas nin waxay ninkii Filipi ahaa ku dhaadeen oo nin waxdii sidoo dhan barta dhig Filipi luqadda maanu fahmin Isbaaniyol buu garanayaa bas buu yidhi waxba uma jawaabin dadna waxay bilaabeen in ay rasaas ku furaan saddexdii nin ee dambiilayaasha ahaa mid kamid ah dadkii loo soo qabtay waxa kamid ahaa hadaba Reggie hal nin oo ereyadaasi ka dhawaa oo lagu magacaabo John ayaa markhaatiga furay oo sheegay ninkaas waxa kamid ahaa dadkii ninkaasi dilay Reggie wax cadeen lagu hayo waxa lagu hayo waxa weeyaan nin baa sheegay oo markhaati furay oo yiri ana arkayay ninkaas ayaa dilay hadaba ninkii lawyer-ka ahaa waxa uu sameeyay waxa uu tagay ninkii ku markhaati furay liftirkiisa baa uu tagay si uu baaritaan ugu sameeyo wuxuu ku yiri arintaas maxaa ka jira arintaas ma hubtaa ma ninkaas dilay runta sheeg saaxiib bila ay ka xabso runta iska sheeg waxa miskiinkaasi dulman anu dami ma geysan buu leeyahay bal sheeg arintiisu waa xunta John wuxuu yiri runta taan ku sheego qadiyadaasi sidii ay dimi baarayaashu waqtigaasi iga doonayeen baan u yeelay 100% dilaago inuu asaga yahay mahub uu yaray ka laakiin 100% anu asaga oran karmay laakiin qofkii waqtigaasi qadiyadiisa gacanta ku hayay waxay ahayd gabadh dambi baara oo dambi baaranimada ku cusub waxa uu ahaaba keyskeedii ugu horeeyay oo ay baaritaan ku sameeyso sidaas oo geedayna waxa islahaydun hore isaga kala toor intaan ku fashilmin degdeg isaga xariiq dambiiluhu waa kan adoon wax baaritaan siismay marka gabadhana maadaama ku cusbay qadiyada dambiga way ku xariiqday inuu isagu dilaa yahay ninkanna waa xaqiijiyo wuxuu aanu runta daan sheego 100% ma oran karo ninkaas dilay anu waxa ma hubo laakiin gabadhii waqtigaasi baaritaanka waday oo babdeed bandeed baan anigu isaga raacay say doonisay Reggie waxa uu leeyahay intii aan oran karayo anu bilaa dambi baan ahay qofkaasi ma dilan oo cadeyn karayo oo oran karayo waan idhi laakiin cidna wax igama dhageysan waa la soo qabtay xabsi daayin baa lagu xukumay xabsiga ayaa la soo dhigay laakiin haatan Reggie qof ayuu dilay nin dhan ayuu nafta dhaafiyay laakiin waxa kaliya uu ku doodi karayo ayaa waxay tahay inay arintiisu ahayd mid difaacu nafsi oo isdifaacay I was just defending myself bro anu wax weeyaan naftaydu ma difaacay wax mushkilad ma sameeyay ninkaasi weerar bigu soo qaaday mindi bigu dhuftay anna waa iska celiyay anyways ninkii arintiisi markii salka laga gaadhay ee maxkamadda la isla tagay ee la isla baaba'ay ee la iska daba wareegay 2 sano ayay ku qaadatay ninkaasi garyaqaanku inuu cadeemo iyo wax walba dibadda keeno xaqiijiyana ninkani in markeedii horeba dambi aanu geysan oo xidhna maxkamadda ayaa la soo taagay maxkamadiina waxay ku dhawaaqday in Reggie uu dilkii hore ee loo soo xidhay aanu asoo ka dambeyn oo bari ka yahay abbaay okay waxa lagu xukumay hadaba 10 sano oo xabsi ah maadaama uu eeday dhaliilo soo jeediyay oo ninkaasi nin nolosheeda halis ku abu ahaa uu dilayay waa iska difaacay adigu waxa lagu xukumay 10 sano oo xabsi walibana kaliya laakiin ninkan already xabsiga waxa uu soo qaatay 8 sano 8 sano waa loo xisaabinayaa sababtoo ah dambi aanu gelin ayuu u xidhnaa maxaa xaray 2 sano kaliya 2 sano Reggie markay u dhamaatay waa la soo fasaxay abbaay bal hadda fiiri nin dambi aanu geysan loo soo xiray haddana dambi uu geystay darteed dambigaasi sababay in xabsiga laga soo saaro qof aanu dilin la yiri waa dishay haddana qofku dilay qofkaas ayaa sabab noqday inuu xabsiga ka soo baxo inta qadiyadiisi baaritaan lagu sameeyo la sii dabagalo Reggie asagoo wajigiisa qiiro farabadan ka muuqato oo faraxsan ayuu dib ula midoobay familkiisa sanadii 2009 la yirina nin adigu xor baa tahay magaalkaaga gal Reggie waxa uu ahaa nin balaayada iyo dambiyada iyo mashaakil oo dhan ka cararaya laakiin mashaakilsha iyo dambiyadu ayaga ayaa lagu
lugahooda ku soo raadsanay mar walibana waxa uu isku dayay in xadgudubyada iyo dhibaatooyinka intii uu iska difaaci karay oo iska difaaco inkastoo dhibaatooyin iyo rafaad fara badan soo malay haddana Reggie waxa uu aad ugu faraxsanaa in ugu dambeyn uu xabsiga ka soo baxay bal hadda sawiro qof lagu xukumay xabsi daa'im oo walibana haddana dambi kale oo weyn u geystay riskiba ugu jira in xataa dil lagu xukumo oo muddo yar gudaheeda laga iska soo daayo farxadda. All right. Ladies and gentlemen, today is my first day of freedom. I feel good, and I'm saying, damn, I look good. I'm just saying. I'm telling you, boy, it feels good to be free. Thank everybody at the Innocence Project. Thank God. Thank my mom, my family for being so supportive. My lawyer, Chris Fleur, don't forget him. I thought you were part of the my attorney, Mr. Christopher Fleur. There we go. That's what's up. That's what's up. Thank you very much. I'm out. saaxiibayaal Reggie haddaba markii xabsiga laga soo daayay ee uu xorriyadiisii dib u helay waxa uu galay dacwad dheer dacwadaasi oo ku baadi goobayo xuquuqdiisii iyo dhibaatooyinkii uu soo maray muddadii uu xabsiga ku jiray iyo sidii qaladka ahayd ee loo soo xidhay dacwad dheer kadib ugu dambeyn sanadii 2017 Reggie waxa uu ku guuleystay in ay maxkamaddu u xukunto $5.5 milyan. Reggie waqti xaadirkan si degan oo ay farxad ku dheehan tahay ayuu isaga nool yahay familkiisa inuu isaga nool yahay yacni qof walba oo dulman oo daawanaya iyo qof aan daawanin oo dulman ba ilaahay dulmigaasi xaga dulqaado gabi ahaana saaxiibayaal anigoo ah saaxiibkiina muu fahmi halkaas ay muuqaalkeena maanta ku joojinayna aad baa idin salaamaya balanteenu waa inoo iyo muuqaalkan loo xiisaa oo xiga channelkeena dadweynaha dadku cusub ay ku soo biiro subscribe saar si aynu gaarno 9,100 page kana soo follow gare imikii haatana sidaas iyo amaana la goodbye.